السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأضيق سلطان سرما هاوي والله يفان دفديا ليف كان ولا يكلفي markay hadii rabbi xukumayo reerkii iyo tolkii iyo dadkan baraarujinayay ee aan hadii rabbi ku idmahayo fiidiyoyada ku baraarujinayay markii fiidiyoyadu waxba ka tari waayeen bal waxaan sirba hadda leefna ku eeg qofna lagama qoostay soo dhawaada arrimo waaweyn maan ka hadlayaa fadlan si share garay qof kasta oo soo galo live-kaygaas oo deer isbedel doona oo hadii rabbi ku idmahayo Muuse Biixi iyo maanta gunnimada maanta taala qof kasta oo ka gilgilanaya live-ka ha iga share gareeyo iga share garee Hamza Ilaa oo soo dhawow Sakriye Maxamuud oo soo dhawow iga share gareeyo fadlan sharta ku dhufto gunnimada qof kasta oo maanta hadii rab war maanta hableeni baa la xidhaya war maanta hal doorkeeni baa la xidhaya war maanta oo kaliya baa laba qof la inaga maraya bal Ilaahay baan ku dhaariyo habeen barka la xidhaya ka war inaan la xidhaya ka war caara bal habeen barka inaan caara la xidhayo bal ka waraba Ilaahay baan ku dhaariyo war gunnimadaas qof kasta oo ka gilgilaya awleefka shar garay saddex arrin baan ka hadlaya qodobka koobaad aan ka hadlay waxa weeye idinkana dadkiina baa la xidhaya idinkuna hadii rabbi xukumay hubba leedu urursanaya idinka leedu ku soo maqan yahay dagaal baa leedu galiyay dad kale gobolada loo magacaabaya dhaqaalihii dalka la urursanaya idinkuna masaakiin baa tihiin tolkayo oo xariir baa tihiin oo hadii rabbi ku idmahayo waxa socday ma ogidin heega in madax martay heega iyo nacdal baa in madax martay saddex qodob baan ka hadlayaa Muuse Biixi ninkii Muuse ordayaha hubbu tolkii hubkii ciidanka qaranka ee birsho xoodhan meel gaar la dhiganaya ciidan beeleedya la tababaranaya technical la samaysanaya tolkayo idinkuna war ma haysan fadlan iga share gareeya ninkii hadii rabbi xukumayo saddex magaalaba hub ku urursanaya saddex gobood hub ku urursanaya iyo ciidan qabiiliyo madaniga ku urursanaya wuxuu ugu urursanayo iyo wuxuu uga daleeyahay baan isdul taagi doona fadlan iga share gareeya hariga maalin kasta dhalinyarada in loo kacayo ina Muuse Biixi iska xiranayo hablahayeegi iyo inamadayadii iyo qof kasta oo habar jeclaayo ka soo fikir duwanaada war garxas muka xiro arab ma xiri karayo garxas ma xiri karayo idinka oo hadii rabbi xukumayo daba dhilif waa taliska Muuse Biixi ba hadana maalin kasta dadkiina xiraya bal aarki Ilaahay baan ku dhaariyay bal inanteeni bal hablahayeegi safana ba saddex ina yaro Muuse Biixi xiranaaya oo ilaa hadda aan ogeyn meel Allah meel lagu xiray Ilaahay baan ku dhaariyay idinkuna maalin kasta markan ka hadlo no madaxweyne dawladda ka soo horjeeda cadow baa tahay huwan baad noqotay caadaqaata tahay wablaanu caadaqaata banahay baladu xore ee u dhalay anu caadaqaata ahay anu tuug baan ahay anu taaj baan hor taaganahay lacagta aniga qaata bal adigu xore Ilaahay baan ku dhaariyay qodobka saddexaad aan ka hadlay waxa weeye waa gabilay iyo degmadeedii aynamana iyadoo dagaal baa la geliyay idinku dagaalkaad galaysaa anaguna buraaqada urursanayna arrimahan oo isdul taagi doona fadlan iga share gare fadlan iga share baa taarafay soo dhawow walaal Cabdiqaadir soo dhawow iga share gare fadlan sharta ku dhufto waaye waxaan isdul taagi doonaa hadii rabbi ku idmahayo Muuse Biixi iyo hubka uu xaafadiisi ku urursanayo iyo ciidan beeleedyada uu dhisanayo inaguna war moogaha ka nahay calan tawxiid leh أنا هعيانة ولقد هعيانة أنا كسومالي لا هلا نيكيو هلا عياره أنت كده كده هينو رجنا أي هوب الروسانيان وإذا ما قبيلة الروسانيان وهدير بحكم أيو أي سلقي سميسانيان ودتكو ده توبرانيان وقبل سمك عابيان إنه رأينا ورك حي نيكي مسور داياها هوب كعيدا كقرك وحلوك يدينشر برشاح ملوك يدينشر مركي دي دولة أنا هين سومال أنا هين إمك الدولة ما تشرتئ برجع سومال أنا هين ما شيء dawladnimada hadii rabbi xukumayo ay dawladda hayn baan ka hadlaya fadlan iga share gareey boqolkiiba qof ee dhudhow shart ku dhufto hubkii ninkii hubbu kaydsanaya hubka cidda loo kaydsanayana waa idinka waa Soomaaliland weeye cidda hubka loo kaydsanaya waa garxads weeye cidda hubka loo kaydsanaya waa habar jecel weeye cidda hubka loo kaydsanaya waa waxa weeye hadii rabbi xukumayo arab iyo weeye hadii rabbi xukumayo sabaro hubbu ninkii saddex goobood ba ku kaydinaya hubkii ciidanka qaranka birjix lama geeyo waa la dhaafiyaa meesha koobaad lagu kaydiyo waxa weeye waa bulaxar weeye
وعلى الشيخ ميلر هو على الشيخ وبدأ كله وبالحار أقصى الوكيد يا هوك أو هيرك حافظ وضع مسبح الدقيقة هاي وي وحلوك هيدي يا بيرت عثمان تعسل لنا قد عي حوق اللي ذيك قاعد بهوب لوك هيتصنيا هدي ربي كويد ما هيو وحوك لوك هيدينا أو هير جارة يا حافظ جارة أي كوك هيتصنسا ماشي ومدحتوية يدوا كده صنيا مركي دمان يسوق ويجارتي مستقبل كدوني يقولوا كدستو ومدة الشعب كاو كده عي دلت مساكين تسد تجردي يسرع تجردي هذا كده حبض اللي قصاري أي هوك كوك هيتصنيا إذا كنا ما أنت واحد أمسنتي قفك مصدقون كهالله إنه يهاي قف قرن دمسة إنه يهاي قف أدير بحكم أيو الدولة نمدا وقلين إنه يهاي قف أدير بحكم أيو عدوة إنه يهاي عدقاتي يهاي إنه هو يهاي بلا يباس من معيو بحنا سان لكن تلك يدك اسمه جدين فضل نقاش القراية بقول كنا قفضل السلافية والله وان كأمسي كرواي أو عاو وان كسحان كرواي كل نمدا وما أنت مصبح يريركيس ما أنت نبضين والله بالله طلع وان كتب سكرواي هوبكاس وانو صعدا حبلها الله حري وانو صعدا قنمدا هدي رب حكم ايو انا خبرت على ما تدختها الله وانو صعدا waxa maanta reerkaygi la baday waanu soo socdaa taas fadlan iga sheer garay ninkii hubbu ku kaydsanaya hadii rabbi xukmaayo bulxaar iyo al sheekh sida wallahi naloo soo sheegayo ee ila xogaal ay noo sheegayaan tiknikada lagu kaydinayo hubka waa wada qoryo tiknik u diyaarin tiknika la saaro inta imika al sheekh kaliya taala waa 80 qori oo tiknika oo dhashiikayala weeyo culus weey ayaa lagu kaydinaya BKM-yadii hubka hoosoo dhismay yaqaanaan beerta Usmaan Dacas waa sidoo kale hadii rabbi xukmay meeshu madaxtooyadii dhuwan ka sheekeynaya oo markii dambana dhacay waa sidoo kale hubba lagu kaydsanaya waxa loo kaydsanaya waxa weeye waa dadka qaar ba aaminsan wali doorashay waxa aaminsan waxa weeye waa sidii dalka u afkambi lahaa waxa weeye waa sidii hadhow tolkiisa hubkii qaranka ay ugu dagaalami lahaayeen waa sidii hadii rabbi xukmaya hadhow ugu haysan lahaa xukunka weeye oo muxuu ugu haysan waayay de habar jeclo oo iska xirxiranayo marna sida xoolaha iska xirxiranayo ayaaba u diyaar oo u dagaalamaya maanta muxuu hadii rabbi xukmaya u baalkaysan waayay ninkii halka hubbu ku kaydinaya bal hadii rabbi ku sameeyay yahay annagu halkaas aanu joognaa xogta war idin sheegnay haddana annagu aad beenaan la moodaysaan oo aydan rumaysanaynin bal intaad imika idinku isbedel doonkow barreey Soomaaliland bal hubka lagu kaydinayo al sheekh waa tuuladaas waa arkaysaan al sheekh waa taqaanaan baltaga bal hubka lagu kaydinayo beerta Usmaan Dacas Hargeysa baltaga bal hadii rabbi xukmaayo bal hubka lagu kaydinayo meeshii madaxtooyada ee diirka ku weegaarsay baltaga bal idinku indhihiina ku soo arka waa taas indhihiina bal ku soo arka markaas bal qiimeeyo waxa noqonayso bal maxay noqonaysaa hubkii ciidanka qaranka oo reer gaari uu qaatay oo reer gaari meel ku ootay oo xaafad gaari meel ku odatay bal maxay hadii rabbi xukmaayo maxay ka dhigantay waa taas idinkaan weydiiyay taata ka daran waxa weeye hub ciidamada Soomaaliland ee la tababarayo waxa la socda tababar gaar ah oo loo sameeyo ciidamada beesha musabbixa ka soo jeedo oo ciidan beeleed ah ciidanka qarankana waxa lagu sheegay in halka laga tababaraya halkan ciidan beeleedii bal ku tababaraya oo musabbixa gaarka u leeyahay hubkiisii oo dhan maanta waanu saarnayn hubkii oo dhan iyo qoryihii oo dhan ba halka yaala oo la keediyo good lagu keediyo gabilay duleedkeeda buur ah baa lagu kaydinaya hubkii ciidanka qaranka oo beel gaar ah u xiran tahay ilaahay baan kugu dhaariyay marka maanta hadii rabbi xukmaayo 7 sano dhaqaalahaagii la cunayay maanta hubkaagii la urursanayo indhergaradkaagii la xidhayo hablahaagii la xidhayo Soomaaliland iyo qarankaad ka fikiraysaa marka waa maxay ii sheeg bal waa taas waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga wadani hadii rabbi xukmaayo in allaale intii isbedel doona hubkaaha ka warkeento ummadana ha loo soo bandhigo gaar ahaan xisbiga mucaaradka ee wadani ha soo bandhigo ummadana ha u bayaamiyo cidii hadii rabbi ku sameeyo ogal yahay hubka iyo wixii laga damacsan yahay waxaan ka hadlayaa qodobka labaad baan u gudbayaa musabbixi wuxuu caadeystay wayna musabbixi baa filan la hadii la xidhay ina musabbixi baa xidhay iyo hablaha ka xidhaya saaka waxa la xidhay jilaylka casal la xidhay oo aad ogeydeen gabadhiisii inta la kufsaday oo waliba xabad loogu daray
إن هدي ربي حكم أي إمي كان حبسنا ولي بالله راعي إلهي بين كود داري الظلم يكبر كمية ما تكسر وأنا حبرت على قرما أنت هدي ربي حكم أي قبل الله فرح مايو أو ولي بحب الله راعي حبس الله راعي إنتر إلهي بين كود داري نينكي isagoo inta lagu sameeyay ba imikana waxa lagu haystaa saad xaqaaga u hadashaa sidaad ciidanka SSB ee deegaankooda difaacanaya sideebad mushaar ugu doontaa sideebad xuquuqdooda uga hadashaa sideebad deegaanka habar jecel hadii rabbi xukumaayo tabashadooda aad u sheegtaa sideebad gobolnimada aynaba u sheegtaa sideebad hadii rabbi hadii rabbi ku idmaayo waa sidee beeshaada uga hadashaa bal qof ilaahay baan ku dhaarilay beeshaada uga hadashaa kabar waad arkaysin fataalkii سلطان سبيست اللي ورن شري المنافقة ما توقع كالي خبر شعلي خبر أول إلهي ما كود داري بالعقل جينا هالك ما تاجيك خبر شعلي خبر أول قرن كدفاع عبور بقربور مذوه هنوصل مقلنا كليه أيو كليه بقربور مذوه هنوصل مقلنا عمر كيان مقلا يقول لك يان مقلا مركا مقلا بقربور مذوه أدي قلت لها مقلن يان مقلا بالقفل يقول لي كور بقر كاجها مقلن بقربور مذوه مقلن وحد جيسن بقفل يقول لي إلهي ما كود داري كور ماذا كل جيستا مركا يقول الله فتالك سلطان سبيست أو وحبك حشون وهدير بحكم أيو سيدنا وح الله لو حرين ياتشرين ما أنت عقلين عاي ولا بقول كنا هديجسنا أنت بقول كني ولي تقولي نما وحن كل هدير بحكم أيدل كيلو دي وينو صود هو ديجان كيسي حاس كيسي عروتي سي أنت لو دي ولي ولا قولي هديجسنا عقلين ما أنت أسمع مريا ومحاد هدير بحكم أيامي بحاول دميكال سيسيدو إنتي نعمة درجة دوجي سي قرن كذا وشعلي سي قرن كذا دفاعي سي هدي ربي كويد محيا لغو حري ساد حسب معارضة ورعاة وطني ساد فكر كا هدي ربي حكم أي كل مية وقبيدا سيدبات هدي ربي حكم أي حبر أول محاد يقول نيكون ويدي محاد حرم نقطي بالإلهي بين كود داري عقل ما تلقى تغيير استيل بين هدير بحكم أي إنه هو حاله ونرقمي بقار بدنا فتاة لا هالقايق عيان وهدير بحكم أي هيجا أمانة يان وإنه مصدق لف يان شرف تريدو ده سراكيش اللي بلوجي عيدا كني قرن كنوجين فيصل عبد بوتان يسراكيش اللي قالجها ماذا نبى أنتو هاللي وهدير بحكم أيو وصوا عرّي البانتي ومشيمي بمالن كستة اللي فيش كلا تاجي هلا الدرو ولي بهلا الدرو هلا الدرو ده المحابيس هذون هلا الله يو إلهي بيكون داري مركزات هل مالن كما هذا المحابيس تي وكسو عرّي هل مالن كما هذا الكوكسو عرّي إذا كروا تاجر سنتي نصي إن الآن هذا تاجر سنتي والإلهي بيكون داري مساسة ضد نمدي نكون شرطة مركز عروتين اللي حرّي مركز هبلين اللي حرّي مركز إن مدني اللي حرّي مركز جسياشني هاليديني والبحانت هذا بحكم يوم يشيمي ومالك استلا يقولي بحال الله يلي يا إلهي بيكون داري بل واحد كل صوته مسبح يشك ميان الضعف نواهي بالله عليك يشر قرايه عيد كاستو إيش بدل دونه في فيديو هاو شر قرايه ورمده سبحان الله شر قرايه ورفيرس با إنا قراي والله إنا إنسان دولت كسي هاني والله إنا إنسان كسي تشرينين ورو أدير بحكم أيو وبل أمد إيجا جارسية فيديو قريقة شارقرية بالله عليكم مالين كاستا أدير بحكم أيو مسبح مركو دالك قبصدي وحقبتكو وهرية وقبتي وحوية ديارديه نبال الحرية أجنتي كاهيدين فلي دبي العربية لبدي والله حري وحقبت ده قوة وين مسبح دالك قبتي وهي وحقبت ده ومسبح دالك قبتي وحوية إنه شركة دينا دقيقة وكوري شركة سيا هديك لا أدير بحكوسة ما وقولي هاي وشركة وكوري قصية مركي دمنا مركي وديدا ميت كلا كسر ضبفري وحقبت ده قوة مسبح دين قبتي وحوية إن أصل ميدي قراصته ده اليرضى هاي برخط وإلى حد وسوق لله فوت سوق لك الله دلكيسي وقراصي كيس الباب بدل الله بي ما ننتي دوينا نختار كيسنا لا ورقي يقوليه يسي والحاسو وحقبت ده قوة مسبح دين قبتي وهي وحقبت ده قوة قرن محمد واقو سلامة وحقبت ده قوة مسبح دين قبتي وحوية إنه ضحبشيل حاميه كو قبصدي وحقبت ده قوة مسبح دين قبتي وحوية إن بقر كيني دلك لو ديدي هينو صاقله وسيدي إلهي بان كوكو داري ان ورددك توقودا حتى إلاشتان ددك توقودا أي حتى إلاشتان بقر كيني با إلهي بان كوكو داري بهتلاد هيركات كقاردين لو ديدي إنو دلك صاقله وان حد دلك فوتسو قلين كراينين مصبح انت أصو وحقبت أيضني قبت
ما أنت رهب لي إني بحبس مل حتى حبس قد حب وحتى ما أقول ماشي لقول رهب لا وأنا اللي يرضى يدي ماشي لقول حتى ما أقول واتا وحقبضة مصبح واتا وي إذا كروا واتا جرسان إنسان واللي في ليف سوي waxaan leeyahay habar jeclo in cadiirtaas iyo ceebtaa in dul saaran ama waydu ka gilgilanaysaan oo rag baa haddii rabbi guusama ogol yahay aqligiinniba la caayayaa idinkana waxaa laku dagaalka gala idinku geesiyaal baa tii idinku dagaalka gala annaguna haddii rabbi xukmaayo horumarka iyo gabiil gobollaanu samaysanayna idinku dagaalka gala annagu dhakhaatiir baan samaysanayna idinku dagaalka gala annagu wadooyin baan samaysanayna idinku dagaalka gala annagu webiyaal baan samaysanayna war gabiile baa webiyaal samaysanaysa webiyaal gacan ku samaysa idinkuna gaajada iyo sixir bararka iyo haddii rabbi xukmaayo colaadaha iyo waxa idin haysta haddii rabbi guusama ogol yahay waad aragtaan ragna janno baa janno loogu daray markaasaa weliba haddii rabbi kuu idmahayo gobolkiina gobol nimcadiiba nimco loogu sii daraya weliba waa lagu sii raali gelinayaa markaasaa weliba gobolka loosii magacaabaya ilahay bina ku dhaari sideebaad markaas damiirkaagu sidee buu dareemayaa marka ninka waxaasoo dhibaataa kuu geystay aad leefleefays waxaan leeyahay dhalinyarada habar jeclo war baraaruga war dadka kale marka dadkooda laga xiro waa u doodaa ee ummad dadkoodii laga xirayo oo lagu tacadinayo oo la dilayo oo magaxyaha laga kaxaysanayo oo guryahooda lagala soo baxayo dhalinyaradoodii oo weliba ku faraxsan oo aamusani war waa arrintan waa mucjise malaa fal baa jire malaa waad falantiine war ilmaada rayaalo baraaruga war qaranka waxa lagu sheegayo iyo haddii rabbi xukmaayo muuse bixi way kala duwan yihiin war Somaliland yani ka Somaliland darsan mid laba say inaan ka yaray haddii rabbi xukmaayo xaafada muuse bixi waxay ku leeyihiin maanta mid baan daawinay wuxuu ku leeyahay marka haddii rabbi xukmaayo garxabsan difaacayo lacag nagama qaato muxuu marka habar jeclo difaacay lacag noo qaata adigu haddii aad difaaci karayn oo lagu difaacayo oo aad leedahay weliba qof baa difaacaya aad leedahay taay xukka ka tag qofka adduunka dadka awood laba taliya u taliya waaye dadkan maatida ah ee aan dagaalami karaynin u taliya sideebaad idinkuna u dagaalamaysan maalin kasta dhiignu dhamaanaya oo maalin kasta haddii rabbi xukmaayo aad meydkii aad u dhimanaysaan oo maalin kasta u dhaawacmaysaan oo maalin kasta dhibta iyo sixir bararka aad ugu dul qaadanaysaan dadna iska ku raaxaysanayaan haddii rabbi xukmaayo idinku dul maamulaya idinku dee waay maamul hadaba bal qof aan dagaalami karayn oo weliba kibirkiisa doonaya inuu iska kaxidho oo iska kahaysta caqligiisa u galaysa marka maalin kasta waa haddii rabbi kuusama ogol yahay telefishinka weliba cayl idiin soo fadhiya dadkiina waa la xirayaa idinkuna waa taageersan tihiin anigu ma garanayo halkaad ka sixiran tihiin waad sixiran tihiin baan u malaynayaa isfardaamiya walaalayaal war markaa bal caqliga ilaahay baan kugu dhaariyey marka iminka clipka inaan dhameeyo ama halkaasi kusoo qorayaan ama toos baa leesoo wacayaa calooshushaqaystaata oo markaan musabix baan markaa u shaqeeya anigu qarankaaga ka soo horjeestay oo markaan muuse bixi ka soo horjeestay haddii dadka aan qaranka Somaliland iyo muuse bixi ina muuse bixi aan kala garanay ilaahay baan kugu dhaari aqligooda nimanka ka hor bal dadka ilaahay baan kugu dhaari xaafada muuse bixi marka soo hadal qaado ooyaya ka waran marka iyaga ku taado waa dadkiina la xidhay ka warna iska faraxsan qoslaya ka waran qaranka ka soo horjeestay ilaahay baan kugu dhaari bal dadka iga soo war oo yarag soo dhaweeyna ariga shar gale walaalayaal waxa maanta habar jeclo haystaa waa azma haysata habar jeclo maanta waxa haystaa waxa weeye waa nacdir iyo ceebtii u dambeysay weeye ma garanayo anigu dambiga halkan ka galay iyo godobtaas anigu ma garanayo maanta inay haysta ciqaab bayna haysta min Allah ya walaalayaal bal ummad la xidhayo oo la leynayo oo haddii rabbi xukmaa jeerasha lagu gorayo oo dhaqaalihii laga xidhay oo dagaal la geliyay oo la baabi'iyay oo aan xitaa waxaan ku mushaar loo ogolayn oo weliba cay iyo aflagaada maalin kasta lagu darayo oo boqoradoodii dalka loo ogolayn oo ganacsiyadoodii la xidhayo oo haddii rabbi ku idmahayo si kasta loola dagaalamayo oo maalin kasta la ilaajibaatihiin soo galeetibaatihiin oo haddana daba dhilifa oo taageersan muuse bixi ilaahay baan ku dhaariyay oo de cudurkii baa idahayo cudur baa jira dad ku dhaca baa leeyahay qofka dila ee laayabu ee dila haddii rabbi xukmay dhibaatay jeclaadaan baa leeyahay cudurkaas hadda walaalayaal ilaahay war walaalayaal xoreeya oo meesha ka caban leh qodobkaas intaasan kaga tagaya qodobka kale aan u gudbayo waxa weeye gobolnimada gabiley halkaas haddii rabbi xukmay ilma xasan buste
iyo dadkii dabadhilifka u ahaa musabix imika soo wada caaya marka gabile ka hadlay sidii gabile hooyadoo tahay sidii gabile aabahoo tahay sidii gabile iyagu leeyihiin markaasay difaacayaan gabilena waa difaacayaan aanamana ma difaacan karayaan ina musabix waa difaacayaan ilka caase iyo nimcad darajana ma difaaci karayaan wadadka ummadda noocaasa ayaan la hadlayaa haddii rabbi ku idmahay fadlan iga sheer gareeyo isdhaafiya gabiley waad ogeedeen dhowr iyo 30 sano u dambeeyay magaaladaas waa la dhisay dhaqaalihii Somaliland oo dhan baa haddii rabbi xukmay la geynayay imikana haddii rabbi xukmaayo wax allaale waxa idinkan leedii qabtay ma jirto iyadoo haddii rabbi ku sameeyo ogol yahay idinku aad qaranka aad difaacaysaan oo dhaqaalaha idinku aad ka dhaqaale badan tihiin oo haddii rabbi ku idmahayo aad si kasta qarannimada ugu soo dagaalanteen oo idinku u soo jihaadeen ba maanta haddana haddii rabbi ku idmahayo wax allaale wax iska keentirinayo aan jirin oo aad gabiley lagu sii dul dhisanaya gabiley laba qodob ayaa gobol looga dhiganaya qodobka koobaad nin baa gobolkiisa dhisanaya nin baa gobolkiisa gabiley gobolkaasi dhiganaya magaaladiisa gobolkaasi tuuladiisa astaghfirullah war gobolkiisa oran tuuladiisa waa 100 mitir square gabiley lagu sheegay xaafad caynaba ka tirsan baa ka weyn gabiley markaas lagu leeyahay gobolka gabiley baa laga dhacay waa gobol cagaaran oo gobol balaaye baasa baa laga dhacay qofku markuu wuxuusa buunbuunsanayo de waa samadaas u tagaya laakiin qofku hadduu adduunka leeyahay oo aan wixiisaba aan waxba u arkaynin oo qalbiga Ilaahay faqriye balaaye baas kaga shubay ma arkayna macadiis gobolka qodobka koobaad waxa weeye nin baa tuuladiisa ka dhiganaya gabil ka dhiganaya gobol ka dhiganaya oo dhaqaale iyo budget si ay u soo helaan ka dhiganaya haddii rabbi xukmay gobolkiisa horumarsanaya qodobka labaad oo hadda ay soo gaaray waxa la sheegayaaba in la doonayo Samaroon lagu kala qaybiyo oo gobolkii awda la oran jiray in qayb gabil la raaciyo oo ilaa iyo haddii rabbi xukmaayo magaaladii lagu hayo la oran jiray ee xeebta ahayd ee loo ballan qaaday Itoobiyaanka in gabil lagu daro wallahi iyo billahi tallahi wa qodobada imka leys waa xogaha imka soo gaaray way waxa la doonayaa de ficilada nimankaas reerkaas ay gaareen dhulkii Samaroon ay lahayd iyo Ciise ay lahaayeen inay gabil raacsadaan ilaa hore tuulay ugu haysteen ku nabad kale dabadeedna hadhow la dhaho gobolkan maxaa idinka ka galay gabiley baa la dhahaa oo Sacad Muuse degan oo lagu hayay gabiley bay ka tirsan tahay maxaa idinka ka galay heerkaas bariyaa haddii rabbi xukmay xaafadii Musabix way arag wuxuu tuman xildhibaan buu doonayay inuu ka soo baxo aad iyo aad inaar laakiin meenu garanaaba in xildhibaanada inay baltaan in haddii rabbi xukmay budgetkii badanayo in miisaaniyadda badanayso waxaas badad faahsan mini ninkii sheekadaas wada wuxuu doonayaa dhul Samaroon leedahay inuu haddii rabbi ku soo ogol yahay gabiley